السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى أخياري مقال كان maanta waxa uu hadlaynaa ama wuxuu ku saabsan yahay waxaan ka hadlaynaa afar qodob oo kaa saacidaya inaad guul ka gaartid forex trading. kaliya ma aan forex trading, wax walba oo aad jeceshahay inaad guul ka gaartid ayuu ku saabsan yahay. haddii ahaa lahayd dhaqaale, haddii ahaa lahayd caafimaad, haddii ahaa lahayd waxbarasho, haddii ahaa lahayd wax akhris, haddii ahaa lahayd trading, haddii ahaa lahayd shaqo hayso, everything, wax walba oo ku saabsan noloshaada ama waxa aad jeceshahay inaad qabatid ama hadafka aad doonaysid inaad gaartid ayuu ku dhaweynayaa ama uu kaa saacidaya inaad si dhaqso leh ku gaartid insha Allah taala. waa haddii afartan qodob aan kula wadaagi doono aad u raacdid sida ay tahay. qodob koowaad waxa waaye sameyso qorshe iyo hadaf ku saabsan waxa aad doonaysid inaad guusha ka gaarto. horta isla fahanno qorshe waa maxay. qorshe waxa waaye waa wadadii ama qaabka u mar lahayd si aad hadafkaaga ama yoolka aad hiigsanayso aad u gaarto. hadafkana waa meesha ugu dambeysa uu qof doonayo inuu hiigsado muddo cayiman. marka hadaf iyo qorshe sidaas ayaa laga wadaa. marka koowaad waxaa sameeydaa hadaf deji. hadafkaas oo tusaale ahaan waxaa rabaa inaa aan sanadka hal sano ka bacdi waxaa rabaa in aan $10,000 ay soo gasho. waa hadaf. hadafka wanaagsan waa inuu leeyahay macnaha waqti, waa inuu leeyahay qorshe taageeraya waa inuu jiro. sidoo kale waa inay realistic ay tahay oo ay macquul tahay in la gaaro. tusaale ahaan haddaad dhahdid hadaf oo unrealistic ah, xaqiiqda ka fog, haddii aad dhahdid tusaale ahaan oo aad dhahdid oo kale waxaa rabaa sanadka dambe ee 2022 oo kale insha Allah waxaa rabaa inaan sameeyo $100 milyan. hadaf way tahay, waqti way leedahay, laakiin is not realistic ma ahan. wax macnaha reasonable ma ahan, wax macnaha aqligal ah ma ahan. ma garatay? waxaa laga rabaa adoo fiirinaysa awoodaada iyo waxa aad haysatid iyo shaqada aad qabanaysid iyo awoodaada intay dhan tahay adoo ka cabar qaadanayo. waxaa rabaa inaad hadaf macquul ah aad samaysid aad gaari karto. hadafkaasna waxaa sameynaysaa qorshe. qorshaha waxaa wadadii aad u mari lahayd, qaabkii aad u gaari lahayd hadafkaas, wax aad sameyn lahayd si aad hadafkaa u gaartid ayaa la dhahaa qorshe. marka talaabada koowaad waxaa waa inaad samaysatid hadaf iyo qorshe. haddii aad tahay trading oo kale waa inay jirto lacaga cayiman oo aad markaas aad gelaysid si aad u gaartid $10,000 aad rabtid inaad gaartid sanad kale ama $100,000 aad rabtid inaad gaartid. waa inaad jirto lacaga cayiman oo kaa saacidi kara inaad degdeg ku gaartid hadafkaas. ma garatay? markaa qorshahaas aad samaysid waxaa kale u baahantaa qodobka labaad waxaa waaye si aad guul ugu gaartid ganacsigaaga ama waxbarashadaada ama wax walba oo nolosha ku saabsan. waxaa la saaxiibtaa dadka ehelka u ah waxa aad doonayso inaad guusha ka gaarto. shimbirba shimbirkiis ayuu la duulaa. ma fahamtid? waa mahmaah. marka haddii aad rabtid inaad wax guul ka gaartid, qaabka ugu sahlan aad guul u gaari karto waxaa waaye waa inaad ka ag dhawaataa ama at least aad la saaxiibtaa dadka ehelka u ah ama aad same field ku wada jirtaan. same field waxaa ka wadaa haddaad forex trader tahay waxaa ku wanaagsan inaad la saaxiibtid forex trader. haddaad tahay wariye waxaa tusaale ahaan waa inaad la saaxiibtid wariyaal kale si aad xirfadaada u horumarisid. sidoo kale haddii aad tahay haddaad rabtid oo kale inaad jirka miisaanka iska dhintid oo kale waxaa u baahan tahay qof miisaanka iska dhimi rabo inaad la saaxiibto. waa wadada ugu sahlan aad guul ugu gaari karto, sababtoo qofkaas aad la saaxiibto wax badan ayaa ka baranaysaa. haddii aad lahayd inuu waxyaaba badan aad ka ogeyn waxa aad doonaysid inaad gaartid inuu kula wadaago ama inaad iska caawisaan labadiina, adina wixii dheerta aad ku caawisa asina wuxuu ku dhaamo oo kuga caawiyo. taas waxay kaa saacidaysa inaad degdeg ku gaartid hadafkaaga iyo qorshahaaga. sidoo kale waxaa waaye qodobka saddexaad waxaa waaye aqri kutubta ama buugaagta lagu qoray waxa aad doonaysid inaad guusha ka gaarto. qodobkani waa very important. waxaad sameynaysaa oo keliya waxaad soo iibsanaysaa buugaagta laga qoray inaad aad haddii tusaale ahaan aad doonayso inaad miisaanka iska dhinto oo kale ama aad doonayso inaad degdeg lacag ku samayso ama millionaire aad noqoto oo kale waxaad sameynaysaa buugaagta laga qoray ayaa aad soo gadanaysaa.
kadibna buugaagtaas ayaa wax ka akhrinaysaa markaas waa yani wax badan ayaa fahmaysaa tusaale ahaan haddaa rabtid inaad maaragtay dhaqaalaha oo kale aad maaragtay wax badan ka fahamtid hadda buuggan waxaa u malayaa inaad ujeedaan oo maaragtay Richard Burdad waa yani dhaqaalaha haddaa rabtid inaad wax ka baratid buugaagta noocaas oo kale ayaa akhrinaysaa simberi waxay maaragtay kaa saacidayaan in aad maaragtay aad meesha hadafka aad leedahay inaad degdeg ah ku gaartid oo weliba maaragtay si sahlan iyo muddo koobanba aad ku gaartid insha allahu tacaala sidoo kale haddii aad tusaale ahaan miisaanka iska dhigtid waxaa akhrinaysaa buugaagta miisaanka laga qoro dabcan haddaa rabtid inaad wax akhris ku guulaystid haddaa rabtid inaad luqad baratid ingiriishka oo kale haddaa rabtid inaad baratid waa inaad buugaag ingiriish ku saabsan akhrisid waa haddii aad rabtid inaad maaragtay aad professional trader aad noqotid waa inaad akhrisaa buugaag trading hadlaa ma garatay waxay kaa saacidayaan inaad maaragtay hore u socotid insha allah oo maaragtay waxay ku dhaweynayaan hadafkaaga iyo qorshahaaga inaad ka guul gaartid qodobka afraad waxaa waaye ugu dambeeya saaxiibayaal maalgashi ku samee waxa aad jeceshahay inaad xaqiijiso yani tusaale ahaan hadaf ayaa ku degsan hadafkaas oo ah waxaa rabaa tusaale ahaan inaan milyaneer aan noqdo okay waxaa rabaa inaan noqdo milyaneer so that marka haddaan rabo inaan milyaneer aan noqdo 5 sano ama 10 sano kadib yani waxaa sameynaya tusaale ahaan waxaan maaragta waxaan sameynaya waddo walba ku gaari lahaa si milyaneer ah dee noqon lahayd waxaa gelinaya waqtigeyga ugu badan iyo juhdigeyga waxaa gelinaya maalkeyga lacag kasta oo haro waa maal gashanaya si aan milyaneer u noqdo mustaqbalka yani waqti badanna waa gelinaya maanta dhan maaragta wax ku mashquulsanaanaya sidii aan maaragta u xaqiijin lahaa hadafkaas aan usoo taabo lahay ilaa aan ka xaqiijiyo anigoo maaragtay milyaneer aan is arkana yani ma joojinayo ilaa aan ka gaaro waa qodobka afraad ee aad guusha u gaari kartid tradingkana sidoo kale haddii aad rabtid inaad maaragtay milyaneer aan noqotid tradingka ama forex inaad ka taajirtid ama financial marketka ama stock marketka waxaa sameynaysaa just maalgashi ku samey waxa aad jeceshahay inay xaqiijiso tusaale ahaan haddii aan aniga tusaale ahaan iska soo qaado haddii aan ogahay lacag haysta tusaale ahaan haddii aan ogahay lacagtaas inay maaragtay wax badan ay kusoo kordhinayso ama horumar badan ay u keenayso waxa aan rabo inaan xaqiijiyo يعني lacagtaas ma jirto meel kaga wanaagsan aan ku bixi karo waxaa sameynaya hadafkaas ayaa dib ugu maalgelinaya lacagtaas iyo waqtigaas kadibna waxaa dhacaysa in aan si dhaqsi leh ku gaaro yani hadafkeyga sababtoo ah resource badanaa gashay lacag badanaa gashay qarash badanaa gashay at least yani hadafka ujeedada ugu weyn ee hadafka waxaa waaye tusaale ahaan daarto inaad milyaneer aad noqotid waxaad hadafka loo sameynaya qorshaha waxaa waaye inaad maaragtay hadafkaas aad gaartid ama ugu yaraan haddaada gaarinna aad u dhawaatid magarat tusaale ahaan daaro inaad milyaneer noqdo 1 milyan aro inaad sameyso 5 sano kadib waxaa sameynaya wax kasta ay ugu qaadanayso inaad milyaneerkaas aad noqdo aad sameynaya dad aad qabsaday oo macnaha hadafkaas oo 1 sano ah ama 5 sano ah ma 5 sano aad qabsaday waxaa dhacaysa laba mid ah dhacaysa inaad gaaro hadafka 1 milyan oo dollar ah inaad sameeyo ama inaad u dhawaado oo tusaale ahaan aad sameeyo $1 milyan ama 800,000 dollar marka waa maaragtay waa awoodda ay leedahay inaad hadaf aad yeelatid iyo qorshe aad yeelatid marka haddii qodobadan aad sameydid waxaan hubaa in aad wax walba u baahan tahay nolosha inaad guul ka gaartid aad ka gaari doonto insha allahu tacaala